doorashadii 29kii bishan ka dhacday magaalada Kismaayo waxay daafur u ahayd jadwalka loodiska ah ee doorashada Soomaaliya ee 2021. afar xubnood ayaa ilaa hadda la doortay oo ka mid ah 329 xubnood ee labada aqal ee baarlamaanka. waxay ahayd tijaabo wax ku ool ah oo dalka u jihaysay dhinaca doorashada. dhinacyada ku loolamaya xilka madaxweynaha ayaa sida caadiga ah waxay xilligan oo kale isku dayaan inay xildhibaano soo saartaan si ay wareegga hore ee doorashada awood u muujiyaan. kooxda nabad iyo nolol oo xilligan ka mid ah labada koox siyaasadeed ee ugu caansan Soomaaliya ayaa si weyn indhaha loola raacaya galaangalkooda doorashada bilowga ah. marka la eego halka ay kala joogaan iyaga iyo Axmed Madoobe, qofna ma aaminsanayn inay gudaha Kismaayo ku tartami doonaan sanadkan, laakiin toddobaadkan ayay dhacday sheeko aan la sii malaawaalin. afartii kursi ee lagu doortay magaalada Kismaayo mid ka mid ah ayay si xoogan ugu dirirtay kooxda madaxweyne Farmaajo, waana kursigii koowaad ee lagu tartamay. madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa si aan la ogeyn u soo dhaxgalay musharaxa la yiraahdo Maxamed Axmed Sayid oo si weyn ula loolamay Ilyas Bedel Gaboose oo noqday senatarkii koowaad ee loo doortay baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. ninkan markii hore lama ogeyn inuu ka socdo dhinaca nabad iyo nolol, oo haddii la ogaan lahaa waa adkaan lahayd inuu soo qoro Axmed Madoobe, laakiin xilli dambe habeenkii Arbacada ayaa la ogaaday inay si weyn u taageerayso nabad iyo nolol. siyaasiyiinta reer Jubbaland waxay sheegeen in sababaha shakiga keenay inay ahayd inuu lacag badan qaybiyo habeenkii, taas oo keentay su'aal ah yaa ninkan siiyey taageerada maaliyadda. baaris kadib waxaa la ogaaday in Villa Soomaaliya u soo adeegtay oo Muqdisho lacag looga soo diray, taasoo la sheegay inay Axmed Madoobe ku qasabtay inuu degdeg uga ololeeyo si uusan u soo bixin Maxamed Axmed Sayid. ninkan wuxuu tartankii kursiga ka dhigay mid aad u xiiso badan, waxaana uu helay 17 cod. waxaa jira warar sheegaya inuusan ku qancin natiijada doorashada oo uu rabo inuu aado guddiga xallinta khilaafaadka. dad badan la yaab ayay ku noqotay in kooxda madaxweyne Farmaajo ay sidaas culus ugu dhex dagaalanto baarlamaanka Jubbaland toddobaadkan. waxaa la aaminsan yahay in haddii uusan Axmed Madoobe soo faragelin lahayn saacadihii dambe ee doorashada in kursigaas uu qaadan lahaa Maxamed Axmed Sayid oo dhinaca Farmaajo ka socday. siday ku bilaabatay doorashada Soomaaliya uma wanaagsana musharaxiin badan, laakiin laguma jaangooyn karo natiijada, sababtuna waa inay dhiman yihiin 325 kursi oo labada aqal ah. doorashadan waxaa la aaminsan yahay inay ka adkaan doonto doorashooyinkii hore, waxaa kaloo xoogan cabsida laga qabo isqabqabsiga kuraasta. madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ayaan weli la sahashan karin mar haddii ay asbuucan ka dagaalameen Kismaayo oo ay Axmed Madoobe dhex marsiiyeen musharax ay rabeen si uu u qoro, inkastoo uu gadaal ka fahmay. maamul goboleedyada kale oo dhowaan la filayo inay iyaguna bilaabaan doorashada aqalka sare ayaa sidoo kale la eegayaa saamaynta ay dhinacyadu ku yeeshaan. maxay kula taadiga